gudoomiyaasha baarlamaanka dowlad goboleedyada danjirayaasha iyo diblomaasiyiinta kooxda hobolada Heegan ee booliiska kooxda Bambeyda ee booliiska bahda saxaafadda iyo dhammaan marti sharafta kale waxaan idinku salaamay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh mudane gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin waxaan ku bilaabayaa Allah mahad iska leh Allah mahad leh oo maanta suurta galiyay inaan halkan isugu imaanno waxaa sharaf weyn ii ah inaan maanta hortiina imaado anigoo gudanaya waajibaadkayga dastuuriga ah ee furitaanka kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka federaalka Soomaaliya dalka Soomaaliya oo aan wada jecelnahay wuxuu marayaa marxalada adag oo u baahan in ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan hadday yihiin ay ka tirsan yihiin dawladda iyo shacababa ay gacmaha isqabsadaan sidii ay u samata bixin lahaayeen dalkooda iyo dadkooda sidaa la socotaan waxaan waqti dheer dagaal marxalado badan soo maray aan kula jirnay kooxaha argagixisada ah oo mar walba u taagan inay daadiyaan dhiigga shacabka ummadda Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan waxayna usbuucii hadda aan ku jirnay ay magaalada ku gumaadeen sida caadadu ahayd shacab Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan iyo mas'uuliyiin uu ka mid ahaa Allah u naxariistee xildhibaan Saqar Ibrahim Abdallah ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu intii shahiiday uu jannadiisii iyo naxariistiisii siiyo intii ku dhaawacantayna ilaahay caafimaad degdeg siiyo mudane gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin dagaalkani ma aha mid aan annagu dooranay laakiin waa mid aan ku khasbannahay waana inaan ku guulaysanno intee rabtaan ugu qaadato saas awgeed dawladda iyo shacabkaba waa inaan u midownaa sidii aan u tirtiri lahayn argagixisada caadaysatay daadinta dhiigga shacabka ummadda Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan waxaan sidaan hore idinkugu ballan qaaday oo naga go'an inaan siino amniga ahmiyadda ugu weyn waxaana shacabka Soomaaliyeed aan ugu baaqayaa inay si dhow ula shaqeeyaan laamaha amniga oo ay la wadaagaan xogaha iyo dhaqdhaqaaqyada cadawga argagixisada ah dalka wuxuu ku jiraa dagaal muddo ka badan 10 sano dagaalkuna wuxuu wataa dhibaatooyin aad u fara badan wuxuu wataa dhaqaale xumo wuxuu wataa duruufo adag wuxuu wataa dhaawac badan wuxuu wataa dhimasho waa inaan adkaysanaa waa inaan u adkaysanno waa inaanu moralkeenu uu mar walba u sareeyo oo caradeennu ay ku wajahan tahay cadawga marna shacabkeenna yaynan ogolaan inay qalbi jabaan ama aan qalbi jabinno ummadda Soomaaliyeed wax badan ayaa la isku dayay in la qabjabiyo oo ay isdhiibaan laakiin ma dhicin ummadda Soomaaliyeed waa dad adag waa diideen inay isdhiibaan guusha waxaa leh shacabka Soomaaliyeed guusha waxaa leh shacabka Soomaaliyeed oo xaq u dirirka ah ama nabadda jecel cadawgu wuxuu marayaa meeshii ugu dambaysay marka la barbar dhigo meeshii ay joogeen 10 sano ka hor waxaan ognahay oo kulligan marxaati ka wada nahay waqtigaas aan sheegayo magaaladan inay nus haysteen waxaan ognahay inay meeshay rabaan ay weerari jireen waxaan ognahay inay wasiiro hal meel ilaa 5 iyo ku laayeen iyo arday aan waxba galabsan waxaan ognahay
maalin barqaa arday aad u fara badan oo scholarship diyaarinaya imtixaanadooda ay maalin cad meel ku laayeen waxaan ognahay inay xitaa haweysteen madaxdii qaranka oo ra'iisul wasaarihii qaranka shir uu ku jiray isku dayeen inay dhibaateeyaan waxaan ognahay inay dalka koonfurta oo dhan ay gacantooda ugu jirtay mar iyo waxay marayeen heerkaas markaan leeyahay waa liitaan oo waa tabar daran yihiin waxaan ka soo qaadanayaa meesha aan wax ka bilownay waxay ku dhamaatay in madaxdoodii la laayo la yaqaanay waxay ku dhamaatay in magaalada Muqdisho laga xoreeyo waxay ku dhamaatay in degmooyin iyo magaalooyin waaweyn oo dalka ah laga xoreeyo waxay ku dhamaatay inay ku jiraan baqdin iyo inay ku dhex dhuumaaleystaan shacabka dhexdiisa si ay ugu geystaan xasuuq iyagoonan cidna u naxariisanaynin una arxamaynin caruur iyo ciroolaba waxaan hubaa inaan ka guulaysan doono cadowga guushu waxaa nooga hartay oo kaliya waqti yar oo ku jira adkaysi amnigu siyaasad ma galo waana mas'uuliyad wadareed qof walba oo muwaadin ahna door ayuu ka leeyahay intay rabto hal ekaato waxaa hubaala in shaqo badan nalooga baahan yahay dhinaca ammaanka iyo la dagaalanka argagixisada sidaas darteed annagoo maxaan ku raahdaa ku xisaabtamayna marxaladaha adag ee dalkeenu ku jiro hadday tahay dhaqaale ahaan hadday tahay siyaasad ahaan iyo hadday tahay bulshadaba waxaan qorsheennay inaan isbeddel la taaban karo iyo dib u habeen ku samayno laamaha amniga ee dalka وما سنتين waxaan qorsheennay inaan isbedelno la taaban karo iyo dib u habeen ku sameeyno laamaha amniga ee dalka sida ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed booliiska iyo hay'adda sirdoonka qaranka si loo dejiyo qorshayaal ciidan oo si rasmi ah uga hortaga argagixisada waxaan bilownay diiwaangelin ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed kuwaasoo intii hore loo diiwaangeliyay ay mushaharaadkooda si toos ah ugu heleen ama ugu dhacay koontooyinkooda ama accountiyadooda waxaana sidoo kale socota in la dhammaystiro inta harsan si ay iyaguna xuquuqdooda si toos ah ay u helaan insha Allah duulay raado sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan xukuumadda aan ku bogaadinayaa dadaalada ay ka wado dib u habeynta hanaanka maaliyadda ciidanka si uu askari walba xuquuqdiisa toos ugu helo ciidanku waxay noo leeyihiin ahmiyadda ugu horeysa ee mushahar bixinta laakiin waa in askari walba la diiwaan geliyo oo aan diiwaan gelino si aan u ogaano tirada dhabta ah iyo sida ay u howlgalayaan mudane gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin dhinaca hirgelinta sharciyadda labadii sano ee maamulkaygu jiray waxaan saxiixay 2 sharci halka 29 hindis sharciyeed oo kale ay hor yaalaan labada gole ee baarlamaanka in ka badan oo kamid ah shuruucdaasi waxay muhiim u yihiin hirgelinta hawlaha dawladda siduu gudoomiyaha u sheegay la dagaalanka argagixisada la dagaalanka musuqmaasuqa
sharciga maamulka maaliyadda iyo xaqsiinta ciidamada oo aad iyo aad muhiim noogu ah sidaas awgeed waxaan si xushmad leh labada gole uga codsanaynaa inay dedejiyaan hirgelinta iyo ansixinta sharciyadaas iyo kuwa kale oo muhiim u ah howlaha dowladda mudanayaal iyo marwooyin muddadii 2 sano ahayd ee aan xilka hayay waxaan xoogga saarnay kobcinta dhaqaalaha dalka hadday noqoto sida aan adduun weynaha uga heli lahayn in laga cafiyo deymaha iyo hadday noqon lahayd inaan kor u qaadno dakhliga gudaha ee dalka dhinaca cafinta deymaha waxaan si hufan uga soo baxnay dhammaan shuruudihii nalagu xiray iyo yoolkii aan kula heshiinay hay-adda lacagta adduunka ee IMF si nalooga cafiyo deymahaas dhinaca dakhliga dowladda waxaan sanadkii la soo dhaafay dakhliga dowladda aan kor u qaadnay 30% marka loo eego sanadkii ka horreeyay dakhliga sanadkii 2017 waxa uu ahaa 142 milyan doolarka halka sanadkan la soo dhaafay uu gaaray 184 milyan doolarka Mareykanka waxaan rajaynaynaa in sanadka 2019 uu dhaqaaluhu intaas ka sii badnaado insha Allah si loo yareeyo halista ka imaan jirtay dhunsashada ama musuqmaasuqa dakhliga dowladda waxaan dib u habeyn ku sameynay habka ururinta dakhliga dowladda waxaana ururintaas dakhliga dowladda ku gaar yeelnay wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka gaar ahaan bangiga dhexe halka markii hore ay ururin jireen dakhligaas hay-ado badan oo dawli ah sidoo kale waxay dowladdu si rasmi ah dib ula soo wareegtay astaanta qaranka ee internetka ee loo yaqaano .so waxaanu dib u soo ceshanay xubinnimadii ururka caalamiga ee isgaarsiinta waxaan dejinay qorshaha 5 sano ee isgaarsiinta iyo teknolojiyadda qaranka waxaana dhisnay hay-adda isgaarsiinta qaranka waxaana dhammaystirnay sharciga shirkadaha ee loo yaqaano company law iyo kan hanti dhowrka guud dhammaan howlahaas aan kor ku soo xusnay aan ku soo sheegay waxay udub dhexaad u yihiin kobcinta dhaqaalaha iyo dib u nabadeynta dalka guud ahaan waxaan rajaynaynaa inaan guul weyn oo wax ka beddesha nolosha iyo mustaqbalkeennaba aan ka gaari doonno dib u dhiska dhaqaalaha iyo mashruuca deyn cafinta hadduu ilaah yidhaahdo mudane guddoomiye dhinaca siyaasadda waxaan xoogga saarnay sidii ummadda Soomaaliyeed horumar uga gaari lahaayeen siyaasadda loo dhan yahay waxaa la mahadiisa ah in annagoo wada jirna ay noo suurta gashay inaan go'aan siyaasadeed gaarno hadday tahay nidaamka doorashooyinka iyo deegaan doorashada ee jamhuuriyadda federaalka iyo sidoo kale wadaagga iyo qaybsiga kheyraadka dabiiciga ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan dhammaystirnay hindisa sharciyeedkii doorashooyinka iyo dib u eegista sharciga xisbiyada siyaasadeed oo muhiim u ah geedi socodka dimuqraadiyeynta dalka si loo qabyatiro dastuurka kumeel gaarka ah
waxaan diyaarinay dhammaan xulashooyinka qodobada dastuurka ah ee ay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ka wada xaajoon doonaan oo ay ka mid yihiin maqaamka ay magaalo madaxda muqdisho ku dhex yeelanayso hannaanka federaalka qaab dhismeedka dowladda asteynta awoodda dowladda hannaanka ee dowladeed ee jamhuuriyadda Soomaaliya hannaanka cadaaladda iyo asluubta federaalka qaybeynta iyo qaangaarista dowlad goboleedyada ku meel gaarka ah nidaamka doorashooyinka iyo xisbiyada iyo weliba hannaanka federaaleynta maaliyadda intaasoo idil waa howlo aan ka wada shaqayn doonno walaalaheen dowlad goboleedyada hadduu eebba yidhaahdo howlahaas oo loo aayi doono boqolaalo sano oo soo socda waxaan u mahad celinayaa guddiga baarlamaanka labada aqal ee dastuurka iyo guddiga madax bannaan ee dastuurka ee dhammaystiray qabyo qoraalka 10 cutub oo ee dastuurka ah waxaan ku bogaadinayaa hawsha ay qabteen iyo wada shaqaynta ka dhaxaysa wasaaradda dastuurka iyo labadaas guddi waxaan ku dhiirigelinayaa labada guddi iyo xukuumadda inay si dardargeliyaan hawsha ay hayaan si loo dhammaystiro 5 cutub ee ka hartay dastuurka waxaan sidoo kale tacsiin u dirayaa ehladii uu ka geeriyooday wasiirkii hore ee dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo dadaal ku bixiyay sidii dastuurka loo dhammaystiri lahaa waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu naxariistiisii iyo jannadiisii siiyo waxaan sidoo kale xusid mudan in bishii Juun ee sanadkii la soo dhaafay ay dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyadu ay ku heshiiyeen hannaanka khayraad wadaagga dalka gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin dib u heshiisiintu waxay ka mid tahay ujeedooyinka ugu muhiimsan ee maamulkayga sidaas awgeed waxaan rabaa inaan idinla wadaago in golaha wasiirada ay u suurta gashay inay ansixiyaan hannaanka dhab u heshiisiinta qaranka hannaanka dhab u heshiisiinta qaranka iyo qorshe howleedkiisa fulineed si loo qaabeeyo loona dardargeliyo dadaalada dib u heshiisiinta ee dalka ka socda waxaan ku guulaysanay dib u heshiisiinta magaalooyinka ay ka mid yihiin dadka waalaha oo degan gaalkacyo iyo marka oo si wanaagsan u dhaqan galay deegaano kalena waxaan ka wadnaa dib u heshiisiin meel fiicanna ay noo marayaan dhanka kale waxaan naga go'an inaan ka miro dhalino wada hadallada maamulka Soomaaliland iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya si xal waara loogu helo tabashooyinka walaalaheen Soomaaliland waa dad walaalaheen aan jecelnahay oo aynan kala maarmin waxaan ku bixinaynaa dadaal dheeri ah midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed si aan uga baxno dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ee ku jirto waxaan u diyaarnahay inaan si waafi ah uga garaawno tabashooyinkooda walaalaheenna reer Soomaaliland mudane gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin kalfadhigan wuxuu ku soo beegmay iyadoo uu meel fiican marayo xiriirka wada shaqeyneed ee u dhaxeeya dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada taasoo qayb weyn ka qaadan doonta xaqiijinta himilooyinka ummadda Soomaaliyeed waxaana naga go'an inaan sii xoojino wada shaqeyntaas hadduu eebba yiraahdo waxaan bogaadinayaa doorashooyinkii ka qabsoomay dowlad goboleedyada koonfur galbeed
iyo Puntland waxaana ku kalsoonahay in doorashooyinka Jubbaland iyo Galmudug ay iyaguna xilligii loo asteeyay ay ku qabsan doonaan doorashooyinkooda hadduu eebbe yiraahdo. siyaasadeenna arrimaha dibadda waxaa saldhig u ah in Soomaaliya ay xiriir wanaagsan la yeelato wadamada caalamka iyadoo iskaashigeedu ku qotomo ilaalinta waxa ugu horeeya iyo waxa ku xiga iyo waxa saddexaad ay tahay danaha qaranka Soomaaliyeed aysan waxna ka hooseyn waxna ka dambaynin. waxaan shacabka Soomaaliyeed aan u xaqiijinayaa inaan had iyo jeer u taagannahay ilaalinta midnimada madax banaanideenna iyo ilaalinteenna xuduudaheenna dhulka badda iyo cirka. xiriirka aan la leenahay wadamada dariska ah waa mid ku dhisan iskaashi oo ku salaysan is-ixtiraam iyo wax wada qabsi siman ee dhinacyada amniga hadday tahay dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo bulshada. Soomaaliya waxay buddiga u ahayd ama u tahay dadaalada lagu xoojinayo iskaashiga dhaqaale ee dalalka Geeska Afrika. ujeedooyinka iskaashigaas wadamada Geeska Afrika waa in wadamada Geeska Afrika ay horumar waara ka gaaraan dhinacyada dhaqaalaha, nabadgelyada, siyaasadda iyo bulshada. mudane gudoomiye, mudanayaal iyo marwooyin, waxaan ugu dambeyntii guddoonka golaha shacabka mar kale aan ka codsanayaa inay meel mariyaan hindisa sharciyeedyada kala duwan ee hor yaalla. waxaana halkaan aan ku shaacinayaa ama ka shaacinayaa in kalfadhigii shanaad ee golaha shacabka uu noo furan yahay. waa mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.